بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن أو وناكسن دمان أخيارتا هودا نغا داوانيساي halkani waa qoraxay web tv xaruntiisa dalka Australia oo si toosan looga daawanaysaan shabakada caalamiga ah ee www.qoraxay.com daawadayaal sida aad la socoteen ba maalmihii ugu dambeeyay waxa cabashooyin aad u ballaaran ay jeedinayeen jaaliyadka Soomaalida Ogaadeniya iyo jaaliyadda Oromiya oo iskaashanaya ayaga oo banaanbaxyo aad u waaweyn ku hordhigay dunida dacaladeeda sida qaaradda Yurub, qaaradda Amerika iyo Australia iyaga oo u gudbinaya dhammaan jaaliyadkaasi dawladaha ay la nool yihiin dhibaatada iyo tacadiga lagu hayo shucuubtoodii dhibaatooyinkaas oo kamid ah dil, dhac, kufsi, barakicin iyo tacadiyo aad u ballaaran waxaana ugu dambeeyay dhibaatooyinkii ay maalmihii ugu dambeeyay ay Ethiopia ka waday dhammaan qowmiyadaha ay gumaysato haddaba jaaliyadda Soomaalida Ogaadeniya iyo jaaliyadda Oromiya oo iskaashanaya ayaa maanta banaanbax aad u ballaaran waxa ay ka hordhigeen baarlamaanka magaalada Perth iyaga oo si weyn u soo banaanbaxay una cabanhayay una gudbinayay fariintoodii haddaba daawadayaal warbaahinta Qoraxay Media oo goobjoog ka ahayd meesha ayaa waxaan idinka soo diyaarinay barnaamijkan ee daawasho wanaagsan waxaad arkaysaa dadkii basaska saaran diyaaradka la socda Oh, say something Afan Oromo about the protest. Nuti kan adeemaa jirru kaayyoo ijoollee Oromoo biyyatti dhuunfaadhaa fi dhaabnee hiriira baanee iyyata keenya iyyachuudhaaf deemaa jirra. Say something about the protest. Yeah, this is the day of Oromos and Ogaadenians going to demonstrate against the tyranny of Ethiopians government that is killing innocent students. They demand for their rights. This is what we are going to condemn. We are going to demonstrate this day with the brothers and sisters Ogaadenians. We as an Oromo. Thank you. Say something about the protest. Afan Oromo or English. Okay. ka warrama mudaharaadka labadina Hadda u facsanahay waxa weeye maanta maartay si weyn baan ugu jeedinayaa waxaan calanka Oromo go حوصلنا أرجع كارتين أصحاب بدنا أورنتي عاد ياسر مستر هيب سوار تمانت مدارات كيو متخنا هي وحنا صعنا مدارات وحنا كسر باور بالسارين بس كلام صارنا هاي إيش هي اللي تجدونا على كوفا بعد برودس حاجة على كوفا وحنا كيسان وعلن كي رمضان جالي دور رمضان وعلن كوادرية مركوا على ولا توبي داو دام ولا أوكي كاسوعة مستر هيب
We are here today to demonstrate and to show our protest. The killing of the innocent students in Ethiopia, or the students in Ethiopia, by that organized mafia group in Ethiopia. So we condemn. We are Oromos and Ogaden community here. We bitterly condemn what's going on there, and also want to show the world what's going on. And the killing, the mass killing, and the arrests and the kidnaps and the tortures. We want it to stop now. So yeah, guyarra nui community Oromo Parziki Sajirufi, community Ogaden Walduka protesti baajarra protesti wanti nubanumo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaani sanni ijoollee yuunivarsiitii fi ijoollee haayiskoolii garmalee ajjeesaa jiru isa dura dhaabbachuudhaaf protestii ba'aa jirra. Wanti kun dhaabbachuu qaba jennee dura dhaabbachuuf kaaneerraa jechuudha. Kanaaf namni iddoo jirutti iddoo hundumaatti miidhaa nama keenyarra ga'u kana dhaabuudhaaf walduukaa ka'ee protestii jechuudha. waxaan u mudaharaadaynaa dadka naga la dhibahayo guuleysanayo la dilahayo la bursanayo maaragtay xuquuqda bini'aadamka inay Itoobiya iyo Tigreegu una aqoonin ayaan la uleynaya ilaa Addis Ababa ilaa dhagax buur ilaa Goday ilaa Heeran ilaa Hawaas taasan ka mudaharaadayna maanta oon ka kululahay dhibaatada dadka naga lagu hayaana kacisa annagu meel nabada aan joognaa nin oo maaragtay waxa la hal dhan ka qalan baa la yiri hal waaxdeed u qalantaa la yiri dhankeeda kale ma fayo hadda baabuur baad saarantiin baabuurkan ma mudaharaadka ku tageysaan mise wasidee mudaharaadkan ku tagaynaa waxaan rabnaa balaha baarlamaanka inaan hor istaagno on xuquuqda bini'aadamka xuquuqda aadamaha aan u sheegno wadankaas Itoobiya inuu wax xuquuq bini'aadam ay ka jirin oo kumayaal arday ay kumayaal duqaytay iyo kumayaal haweenaba We need justice. We need freedom. We demand freedom. We demand freedom. We demand justice. We demand peace. We need justice. We need freedom. We need peace. Freedom for Oromia. Freedom for Ogadenia. Freedom for Ogadenia. Freedom for Oromia. No killing to Oromia students. No killing to Oromo students. No killing to Ogaden people. No killing to Oromo people. Do not sell Oromo land. Do not peace. We need justice. We need freedom. We demand freedom. We demand freedom. We demand justice. We demand peace. We need justice. We need freedom. We need peace. Freedom for Oromia. Freedom for Ogadenia. Freedom for Ogadenia. Freedom for Oromia. No killing to Oromia students. No killing to Oromo students. No killing to Ogaden people. No killing to Oromo people. Do not sell Oromo land. Do not earth, which is Ethiopia. I don't want to call that state it's a government. It's a state based on one ethnic group, which is only 40% of the population of Ethiopia. And every single pence that is given as aid, they're going to spend it for the military purpose, killing the innocent people, arresting a lot of people without a trial. It has been going on that one for years and years, and now we're asking at least Australian government to stop its aid, because that's only contributing
to the suffering of the innocent people. And this all other ideas is only benefiting by the only small group, which is the elite group of Tigranian, not the rest of Ethiopia. Otherwise, we would have seen a lot of development in Ethiopia. We have seen a lot of democratic practicing over there. And recent case, which is that showing how Ethiopia is against for freedom of expression, is the killing of students who are just asking for trying to express their view towards anything they wanted. So the response of government was killing. That one has been going on in Ethiopia, in Somalia and Ogaden for centuries. I will remind you one single incident that happened in Jigjiga jail. A lady who was gave a bath, just 3 days she was arrested and her baby was left behind. After 1 year and a half she was released, but when she was released she was blind. She couldn't see nothing because of the starvation that she was suffered while she was in the jail. And that's only one incident, but millions of others happened in Ethiopia, and we were asking the international government to stop aiding hundreds times. We're asking the international community and Australian especially. We are taxpayers, and when we see money is given to Ethiopia and they're killing our people, we are not happy. So now we all of us should unite our voice, our mind, our muscles, everything that we have to unite towards against this regime. Yes. And this regime, I hope, win soon. Yes. Thanks a lot, ladies and gentlemen, again. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu maanta halka ka dhacay banaanbax weyn oo isku weyn shariyada Oromiya iyo Ogaadeen waxa weeyaan anaga dhalinyarada waasi galbeed Australia maantii aan ka qayb qaadanay iyo shariyada reer Ogaadeen waxa weeyaan banaanbax maanta isku yimid waxa ka dhacay banaanbax weyn halkan hadda taaganahay waa baarlamaanka agtiisa باوركن وباور dadka ku yimaadeen muddo waxa la soo socday maraynayaa musaac la soo socday meesha ma kalimaanay musaafo dheer baa la soo galay alxamdulillah mudaharaadkii si wanaagsan buu noogu dhamaaday marka alxamdulillah ogaadeen ahrood dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow halka aad wali naga daawanaysaan waa qoraxay web TV xaruntiisa dalka Australia daawadayaal barnaamijkii aad maanta idinku talagalay inta ayuu ku egyahay inta aan barnaamij kale ku kulmayno waa qoraxay media oo isku duuban oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh